cabdikariin markaan xaqiiqada taabanno laba shakhsi hadday isqabtaan ma la odhan karaa labada shakhsi way khaldan yihiin miyuusan qaladku hal meel un ka jirin marka la fiiriyo laba ruux oo is haysata ileen ma wada khaldanaan karaan labada ruux waxaa laga yaabaa inuu mid khaldan yahay adigu nin odayaa tahay magac weyn ku dhexlay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna shacbiga reer Ogaadeniya iyo jabhadda oo aan elf magac weyn ku labaday inta Kenya iska imanaysa iska aamusaysa miyaysan waajib lagu lahayn inaad dadkan isu jiido cidda khalad kalena tiraado waa khaldan tahay wadada ku soo aad mabaadiida ururka la isku ma haysto khilaaf kama taagin himilooyinka ururka la isku ma haysto khilaaf kama taagin oo aan la fiir sababtay u diyaarsaneed iyo waxa u taagnay shacbigeedu dagaalka u galay loo taakuleeynahay waa mowqifka waa lagu midaysan yahay ku taxlaax tagaa u yiraahdo inaan oonelf baabinaan naga qorshahay haduu baabiyo muxuu ugu bedelayaa oonelf waxa uu ku bedelayo Soomaaliyu leedahay meeshii yaal muxuu yahay uu keenayo BB yaal ma naga arma Soomaali baa am xaraale waa hadafkii Abasiiniya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركل كل وناكسن كسر دوادا غيب كله وأن كورة سنة إنه مدن عبد الكريم شيخ موسى قلب الدجح مدن عبد الكريم مركل كسر دوينه كسر دويستيف غيب تنبروح عن شعر إن أنا هذا الله رمها الدجان كسومالي ذا يورو كاجا أتكتر سنة أو إن لف مرحلة وكسر جيني هاي سيجود مركل ده دجان كسومالي ذا قارن كوجودن بيس هنموجه هاي واحد طبعا بيروح وياس مراس واي maxaad ka warhaysaa marxalad noocee ku jira wala marxaladu waa marxaladu wada og yahay oo hadda labadeena isku in baan ka ognahay marka xaalad xasiloon marka aynu fiirino gobol ahaan uu ku jira Soomaalidu deegaankeedu hadda iska xasiloon yahay xiisad badan iyo colaado badan kama jiraan waxada aan ku tilmaami karno oo khatar ah oo hadda isaga dul saaran oo gaar ma jirto marka laga reebo colaada iyo dagaalka kaga yimid dhinaca Canfarta oo maamulka Canfarta si abaabulan ugu soo qaaday weerar shacbiga deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City dhibaato badan uu ku geystay ilaa haddana aan ognahay inaan xal laga gaarin colaadaas culayska ugu badan ee hadda naga xagga colaadaha ee jira inaga khusay hadda inaha weeye ee dul saaran sida guudna xaaladdiisa kale waa iska wanaagsan jawi waa wanaagsan way dagaalkaas soo aragtaa Canfarta iyo inaga maxaa xal loo gaadhay asla dagaalkan Canfarta waa dagaal abaabulay oo la diyaariyay muddo horena la soo diyaariyay yaa diyaariyay maamulo hore oo ilaa Cabdi Jibriil baan malaynayaa xilliga inuu meesha madaxweyne ka ahaa yaa maamulkii jiray Itoobiya dawladda Itoobiya waxay qorshaysay hogaaminaya ururkii EPRDF ee Tigray hormuudka ka ah TPLF hormuudka ah ayagoo Soomaalida ku xumaynayo doonaya inay dhulkooda iyo dadkoodaba barakiciyaan oo dagaalkii socday dartii u cadaadinay ee dhul badan oo Soomaalidu leedahay iyo waxay siiyeen qowmiyadaha kale qayb Oromaysiiyeen qaybna Canfar bay siiyeen saddex degmo oo kamid ah marka gobolka City yaa waxa la siiyay Canfar afti baa laga qaadayaa baa la yiri shacbiga Soomaaliyeed ee joogay ciidamada ka raray xoog baa laga raray Canfar baa la keenay cod bixin baan qaadaynaa bayde waxaan uga baranay Itoobiyadu markay leedahay waxba aan cod bixinaynaa iyo doorasho ay dhigaynaa waxaas oo dhan inay run ka sheegin natiijo la sii qorsheeyay iyo shaqo khayaali oo dhalanteed inay natiijadeedu ku soo dhamaato oo markii horeba sii qorsheysay sidaas saddex degmo oo dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen oo gobolkaas ku taalay yaa lagu wareejiyay maamulkii jiray Canfarta waxa saxiixay oo ka dambeeyay maamulkii iyaga ka dambeeyay Cabdi Maxamed Umar Cabdiilay yaa saxiixi iyo wareejintii xil wareejintii isaga yaa lahaa inta kadib Canfartu waxay qorsheysatay inay deegaankeedu soo degto maamuladeedii keensato hay'adaheedii iyo booliiskeedii iyo ganacsigeedii iyo shacbigeedii keento shacbigii deegaankaas oo markii horena jajubnaa mar walba xoog ciidan lagu cadaadinayay naraali uu ka noqon waayay dagaalkaas sidaas ku bilowday Canfartu si abaabulan bay marka dagaalka u soo gashay ciidamadoodii mayu booliiska ahaa oo ay gacan siinayaan mararka qaar ko sidaan xogta ku heleen
kuwa ciidamada militariga federaalka iyo federal police ay mararka qaarkood gacan siinayaan yaa dagaal ku soo qaaday macnaha waxa weeye qolada federaalku ayagoo meeshii jooga oo amnigii iyo dadkii ballan qaaday inay ilaalinayaan yaa dadka hortooda lagu leynaya hortooda carruurtii lagu gowracaya hortooda haweenkii lagu gowracaya ilaa hadda meydku hor yaalla ilaa aasana lama ogola guutooyin militariya iyo kuwa new baalka booliis federaal ahaana degan macnaheedu muxuu yahay marka waxaa weeye waa dagaal abaabuloon oo dadka Soomaaliyeed lagu soo qaaday oo canfar iyo cid dabada ka wada ay soo qaaday weeye waxaan u arkaa dagaal siyaasadaysan oo la rabo dadka Soomaaliyeed deegaamo u leeyahayna lagu qaato kumana ekaanaysa city bari dir dhaba ku xig doonta bari waxa ku xig doonta dir dhabe way ka soo gudbi jigjiga imaanay dareenkaygu ani taas u tusaahay dadka Soomaalida looma ogola dalkooda inay joogaan looma ogola Itoobiyaanku waligood waxay aaminsanayeen dadkan Soomaalidu dalka uu degan yahay inuu dal Itoobiya laakiin dadka uma taqaan Itoobiyaan dalka waxay u taqaanaa inay Itoobiya leedahay laakiin dadka waxay u taqaanaa Soomaali soo guurto oo meel kale ka timid yaa u taqaanaa Itoobiyaanku dhan baa u yaqaan isku wada darba waa aragti ka timid waa Abasiiniya boqortooyada Abasiiniya iyo Meelelig iyo aragti ka timid boqortooyooyinkoodii oo warigeed soo socotay oo ay ku wada hawlgaleen oo xukuumad kasta ay ku shaqayso oo gabagabadiina Tigraygu uu muujiyay ficilkii dhabta ahaa ee qarsoona ee Itoobiya ku jiray oo dadka Soomaaliyeed tusay inaan Itoobiya laga rabin qof Soomaali inuu ku noolaadaba maxaa dalka Soomaalidu leedahay loo siinayaa qoomiyada kale maxaa afti loo gelinayaa dadka iyo dalkiisa maxaa loo gelinayaa maxaa loo barakicinayaa macnaheedu waxa weeye dhulkaan leenahay waa soo guurtaad ku timaadeen wax ka soo gudbay xeebta badda cas iyo Djibouti iyo wax ka soo gudbay badaha kale Indian Ocean iyo Soomaaliya yaana loo arkaa dalka inaan leenahay lama aaminsan marka waa dagaal ku talagalo oo aaminsanahay dadka iyo dalka in lagu wareegayo dadkana lagu barakicinahay ana aaminsanahay weey marka inuuna Garbaciisi iyo City ku ekaanayni badan Garbaciisi iyo City iyo aan rufacad midna kuma ekaanayo dir dhabo iman jigjigu iman wuu soconaya in la iska celiyo weey la isaga celin karaa marka ma waxa la isaga celin dadka Soomaaliyeed waliga Itoobiya oo isku doono 100 milyan aan la dagaalamayno inagoo dawladdu ina taakuleynaynin oo waran loo gacmaha aan waxba haysan oo 40 qori ku bilowday dagaalka Itoobiya oo dhan iyo ciidankeedii 120 milyan 40 qori ma ku go'aan qaadan kartaa kula dagaalan yaa iska celin marka oo maanta qorigii ma wado 40 oo la foom shacbiga Soomaaliyeed waa haliyay dagaal oo xariif ku ah goobaha dagaalka Itoobiya oo dhan baan iska celin karnaa inta ay tahay intay midowda haday ay nagu soo wada duusho way dhici jirtay waana iska celin jiray ma iska celinay laakiin soo markaan midaysanahay ma inagu aan mustaqbalkeena ka fikirayno hadii aan hadda xilligan laftigeeda waxa weeye waxa jirta waxa la ard fulayo dagaal wax ku dhaamahay waxa ku dhaamaba soo nin fulayo dagaalada nacba yaa soo xidaaraysan jiray maalintii dambe afarta koonaba laga soo galay way nin kale la joogi jiray wax ila caabi kala yaa u dhawaaqay fulayo bal maanta ba dagaal wax ku dhaama hel hada isdiibto waa lagu dili dagaal maxaad u diid waad ku khasbanta ama ciidan yaro ama ciidan badnow waad ku khasbanta dadkaagi baa laynaya la barakicinaya dalkaagi baa la qaadanaya sharaf kuma taal gabdhaheeni meydkoodii baa ya hadda arkay sawirro la soo wada dhigdhigay meydkii yaa wali wuxuu daasan yahay goobihii lagu laayay oo la aasin hay'adaha noo dhowran ma waxaan qiimeyn karnaa dagaalkan yaa nagu soo qaaday baan qiimeyn karnaa intee sana kadib baan qiimeynteena yaa soo gabagabaynayna waa ay cid weyn hadda ka jawaabno la rabo inay dagaalanto iska celiso ma shacbiga Soomaaliyeed ba ma maamulka ma xisbiyada siyaasadda waa ay cid Soomaali oo u kala bixin maamul iyo xisbi iyo siyaasad maanta waxay taagan tahay Soomaali bay taagan wariyaa Soomaali ay bay taagan wariyaa iimaan ku jira yaa damiir lay taagan meedkeeni baa banaanka daadsan dhaawacani baa boogta ku ablowday
maalkeenni baa la dhacay dadkeenni baa barakacay ma taagna koox iyo urur iyo xisbi iyo shakhsi ma taagna yaa Soomaaliya bay taaganta haddaan ku filan weyno waxaan leenahay waryaa Soomaaliya waryaa islaam waryaa meel walba waan gaarsiinin laakiin markaan intaasba u yeedhayno ka hor inagu waa inaan la nimaadno diyaar garowgeeda waa inaan la nimaadno ficilka waa inaan la nimaadno maamulka deegaanku iyadoo sida ay u jirto xaaladdu oo aan ognahay maalin walba in shacabkii Soomaaliyeed la leynayo oo dhul riix lagu wado oo la soo riixayo oo ayna canfar kaliya ahayn oo dhinacan Oromo maaragtay marar kala duwan dhibaatooyin ay ka wado haddana shacabkii Soomaaliyeed waxay ku andacoonayaan in xukuumadda ay hubki ka ururinayso ay iskaga celin lahaayeen dariskooda oo hadda ay ugu dambeysay in laga soo ururiyay daaqata iyo meelaha ay ka mid tahay Baabili tuulooyin hoostaga in shacabkii laga soo ururiyay qoriyaha iskaga dagaala ay iskaga celin lahaayeen Oromo iyo canfar iyo cid walba ku soo duushay say kula muuqata arintaas ana waxay la tahay nuurow mudane horta xog kama hayo anigu hadda hub qaaday xilli hore waan ogaa xilligii dagaaladu ay ONLF Ethiopia dagaal ku jiraan shacabka hubka waa laga qaadi jiray laakiin hadda ma hubo haddayba sadhacdo meesha la hadda dagaalka xoogiisu wuxuu ka socdaa gobolka City dhibaatada waxay ka dhacdeen oo gobolka City maanta mushkiladda ugu badan inaga haysato saan ognahay xukuumaddan xukuumad la yiraahdo BB oo adsaaba iyo ka tirsan tahay markay wax dhacaanba dhowrka madaxweyne ee jirta iyo labada madaxweyne ee Soomaalida iyo Canfartaba adsaaba looga yeeraa iyo hogaamadooda nabadgelyada iyo booliiska iyo waxaas waa loo yeeraa arrimaha nabadgelyada laga hadlaa loo dhan muddo kadibna waxay uun soo gabagabeeyaan shirkaas iyagoo la leeyahay warmurtiyada waxa laga soo saaray wixii dhacayna in laga xaaltamo hadda kadibna ayna dhicin ciidamo military la geeyay waxaas way dhacdaa maamulku marka waxaad moodaa inta badan maamulka adsaaba qorshe ayna wada qaadan inuusan fulin karin aniga way muuqataa 100% laakiin isku dayo way jireen hadda koor ciidamo la geeyay waxay ila tahay inta wax ka badan baa laga rabaa maamulka Soomaalida waxa laga rabaa xil iyo waajibaad intan ka badan baa saaran dadka ayaga xukuma Mustafa Aktar asaga ayaa madaxweyne ka dalka isaga laga xisaabtami dadka Soomaaliyeed marxaladahan uu marayo oo dhan isaga laga xisaabtamayo difaaca dalka isaga laga xisaabtami difaaca dadka isaga laga xisaabtami barakicintan inuu ka jawaabo isaga laga xisaabtami waa wiil qeyrkii ah oo gudoomiye kaliil ah madaxweyne kaliil ah hadduu dhigaagi uu dadkaaga soo weeraro oo ciidamadiisii geliyo bal wada hadal ha laga gaadhay maxaa ku diiday adaa ka ciidan badan adaa ka hub badan adaa ka geysan adaa ka karti badan adaa ka tira badan waa 3-4 milyan way dadka shacbiga aan maanta ka cabaadeen 15 milyan oo Soomaaliya baan dalka iska leh maxaad uga cabaaday intuu talaabo qaado iska celiyo dhagaha ku dhufto marka kadib dhulkiisa iyo dadkiisa oo nabad oo seef ah hal laga wada hadlo mas'uuliyadda waxa qaadan cidii lahayd weerarka iyo barakicinta iyo duulaanka iyada qaadan mas'uuliyadda wuxuu uga sugi cid kale asaga waxaan uga baahanahay inuu qaato tilaabo uu ku difaacayo dadkan iyo dalkiisa hadduu difaac waayo waa la heli cid difaacad la soo daba fadhiyo maxay loo daba fadhiyo maxay isaguna maalmihiisa iyo taariikhda aan isu daynayna hadii la yiraahdo dadka Soomaaliyeedna hoos intuu u foorsado Canfar iyo cid kale mid uu rukuuc imaan aad baa maasanta Ethiopia marka la yiraahdo dagaalada ka socda iyo xaaladda Ethiopia guud ahaanba say wax kula muuqda wala Ethiopia dagaal baa ka socda qof la muuqashadii way dhaaftay dagaal waxa ka socda faraha laga gubtay intan ayadu hadda ay isku hayso horeba inaga inoogu wada haysay iyadoo isku duuban oo nu kala hadhin yey Soomaali sida ay ula dagaalamayso weligeed dagaalkan inaga keligeen buuna haystay ki inaga ay inagu haysay iyadoo hadda isku haysa tikray 30 sano ina baabiyay amxaarab 200 sano ina baabisay cid walba meesha timaada inooma teela dhiganin dagaalka Ethiopia sideedaba Ethiopia xaalad normal ah kuma noolaan karto Ethiopia mar walba inay dagaal ku jirtaba waa mar inaga inagula jirtay iyo hadda inaga intii aynu iska tabargabnay oo wixii aan iska joojin iyadoo ay dagaalamayso waxaan u arkaa dagaalka marka Ethiopia dagaal culus oo waxba la isku reebanaynin oo runtii maraya meel aad iyo aad khatar ah
qaxootigiisii adduunka oo dhan buu gaadhay suudaan buu gaadhay wuxuu gaadhayaa meelo kale u gudbayaa jabuuti buu gaadhi doonaa eritrea u gudbayaa meel walbuu ka dhacaya weli waxaa la kala qabsanayaa dhulkii waxa dagaal aan la isu reebanayn yaa Itoobiya ka socda waana xaalad la wada ogyahay waxa aniga hadda qiimeyn iga baahan maaha marka waan arkaynaa wuxuu ku dhamaado ma inuu arkaynaa laakiin wajiga hadda Itoobiya wadadan hadda ay saaran tahay marka la qiimeeyo ma ku muuqdaa mudan Cabdikariin in badan bad Itoobiya dagaal kula soo jirtay xaaladeeda wad qiimeyn kartaa wadada hadda maanta Itoobiya ay saaran tahay haddii aan xal loo helin ma ku muuqataa inay tahay wado ay ku kala tagi kartaa ama ay ku burburi karto Itoobiya hadda haddii dagaalkan la joojiyo xataa isku soo noqon mayso حتى هذه اللي جوجي dagaalkan hataa hadii la joojiyo Itoobiya saamini mayso isku ma soo noqonayso xaqiiqada isku ma soo noqonayso Tigray inta Itoobiya inteeda kala aaminaan oo Amhara ay ra'iisul wasaare noqdo oo Oromo madaxweyne noqdo inay daba fadhiistaan marna ma dhici mayso Tigray intay soo noqdaan dalkii madaxayna ka noqdaan Itoobiya inteeda kale oo hoggaansato marna ma dhici mayso Oromo inay isu dhiibto Amharo iyo Tigray oo idhaahdo usha noo qabto usha hadaa doontaan nagu garaac hadaa doontaan noo subka oo nadaay marna ma dhici mayso Itoobiya halka ay gaadhay marna ba hoos uga soo dhici mayso yani heshiis kuma noqon karto wax dambe isugu imaanayso waa saan anigu aaminsan xaqiiqada Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa laakiin waxaan aaminsanahay Itoobiya inay kala dhimatay oo isku dhimatay oo in mar dambe isku soo noqonayni baan aaminsanahay inta wax ka badan la sameyn karaa waxa weey dagaalada socda in qoomiyada la isku qabsado dagaalku sii fudo hadda wuxuu maray dagaal shacab u maray wadarkiisii madaxweynaha Amharadu wuxuu amar ku bixiyay shacbiga Amharo qof kasta qoriga ha qaato furintana ha tago ciidamada ha ku biiro ra'iisul wasaarihii dalku wuxuu amar bixiyay qof kasta oo Itoobiyaan oo qori qaadi kara qori ha qaato ciidamada ha ku biiro dagaalna ha galo 100 milyan iyo 120 milyan Itoobiya 50 milyan baa qaadi karta hubka 50 milyan hal qaada la leeyahay Soomaalidu kuma jirta dadka leeyahay hubka ha qaado toban qori xataa lagu ma aamina sabab Itoobiya moogtahay Soomaalida ma aamin Itoobiya waxa uu taqaanaa Itoobiya inteeda kale Soomaalida Itoobiya waa taqaan waa taqaan laakiin hadda ciidamada Soomaaliya dagaalka qaybka ciidamada ayaga hore u dhisay askari waa askari meeshii la doonaana la geyn karaa laakiin shacbiga waa askari Itoobiyana shigigri mungisi wax la yiraahdo ku qoran yahay oo dawladdu ay leedahay sharciyada tababaratay iyada qalabaysay iyada direyska siisay iyada logistikadiisa hadda bixinaysa dagaalkiisa iyada hogaaminaysa askari waa askari laakiin shacbiga Soomaaliyeed intii boqolaata qabridaar iyo dhagax buur iyo wareer iyo la keenay goday afdheer iyo intii la geeyay liimaan in la dhaqaata shacbiga inuu kuma jirin wax ka qaadaya la amra in hubka ay qaadaan waa inta kale weey basooladan kor u qaadnay baan la aamini karin inag laakiin wala inaga qaadan karaa dhalinyaro dagaalkii baadhama iyo sharaara markuu socday Eritrea dagaalkooda u bilowday 25 kun oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo ardaydii iyo kuwii suuq joogta ahaa iyo waxaas intii la ururiyaa dagaalka lagu shubay 25 wax yar baa inaga soo noqon sharaara iyo badhma iyo cadow halkii ku dhamaaday waa laga qaadan karaa dhalinyarada waa la geyn karaa meel kale way ku soo jabi karaan dagaaladaas intaas anaga ayaa la inagu sameyn karaa way aad baa ma santahay mudan Cabdikariin halka markay taagan tahay Itoobiyaankii kale dhan loogu baaqaynay suubayaan cidii qori qaadi karto dhan ay qori qaadato shacbiga Soomaaliyeedna aysan Itoobiya aaminsaneen been Itoobiyaan yahay shacbiga Soomaaliyeed iyaga ma la gudboontahay inay qori qaataan si ay ugu toghayaan waxa Itoobiya ka iman kara ha ana amisana inay waajib tahay wali fardul ayn qofka Soomaali waa inuu qaato qori oo iska difaac khatarta ku timaado anu ma dhahayna cid ha weeraro dalkiisa iyo naftiisa waa inuu badbaadiyo maxaa yeelay hadda maxaa socda xasuuq baa socda
400 oo qof baa lagu dilay garbaciis oo caruur iyo dumar iyo waayeel iyo dadkii kici waay yaa la wada gowracay miyayna waajib ahayn in la difaaco oo qoriga la qaado fardul cayn miyayna nahay dadka Soomaaliya dagaal fardul cayn haba ku wada imanayaba oo hadda hor yaalaba marka waa inay qof ka qaadaan xadgudub inay sameeyaan loo baahan cidna inay ku xadgudbaan laakiin waa inay dalkooda iyo dadkooda ilaashadaan waardiyeeyaan xadgudub kasta oo ka yimaadana ay iska difaacaan aad baad mahadsan tahay mudan Cabdikariin way oo in dhexdeeda aan soo noqdo adigu waxa tahay xubin gudiga fulinta kamida ee oo in lafsada aan ogahay horeyna in badan baad nin halgamaa oo soo dagaalamo ahayd waayadii ugu dambeysay shacbiga taageero oo in laf midmadow badan baa u muuqday adiga laftaada 10 bilood ugu dambeysay bilaantaada lama arag saa wax u socda oo in gudaheeda marka la yiraahdo horta nuurow saad la socoto mudane horta khilaaf wuu jira oo laf gudaheeda wax la yaabo ma khilaafku bini aadamku ka dhaca bini aadamku oo dhan baa khilaaf ka yimaada waa la iswada dilaa waa la kala jabaa asxaabtii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa kala jabtay laba ijtihaad ay ku kala dagaalamay ilaahay maslaxu keenay way heshiiyeen asxaabtii badar soo dagaalantay aan ka ahaydii yaa wada dagaalka ku wada jirtay nabiga intii ka dambeysayna sidaas khilaafku waa dhacaa khilaafkuna meel loo noqdo leeyahay waxa loo noqdaa shariicada islaamka waa loo noqon karaa oo lagu xaliyaa wixii khilaafaad dadka islaamka dhexdiisa yimaada xeerarka la qortayna waa loo noqdaa taas waa mar wax la yaabo ma dawladda iskhilaafa 40 sano Soomaaliya khilaaf baa dhex yaal kililkeena muddo badan hadda 3 sano u dambeysay khilaafyo badan baa ka dhacay waxa soo wada xalay waxaan leeyahay marka koow horta khilaafyada dhaca khilaafka oo wanalf waxaan aaminsanahay anigu inuu yahay ka ugu sahlanba sababtu waxa weeye oo wanalf waxyaabii asaasiga ah oo wanalf abuuranta la isma khilaafsan asaliyan oo wanalf maxaa loo sameeyay maxay oo wanalf u taaganta maxaa oo wanalf shacbigeedu ka sugayay maxaa looga barta maxay ka turjumaysaa oo wanalf waxyaabaha isku khilaafsan tahay waa wax ka duwan oo ka hooseeya waxay oo wanalf u abuuranta ee intay ka abuurantay ee muhiimka ah oo lagu midaysan tusaalan ku siinaya wax yar baan ku sheegay adoo raaliga oo wanalf wuxuu leeyahay ururku himilooyin buu leeyahay hadaf iyo mabaadi buu leeyahay oo la isku diidaneen ilaa hadda koow haddaan wax yar kuu sheego himilooyinka ururka markaan ka soo gudbo qayb kamida markaan wax ka taabto in lagu xoreeyo dhammaan dalka ogaadeen iyo gumaysiga Itoobiya oo wanalf isku raacsan qodobka khilaaf kama taagin waa himilooyinka ururka dhisid dawlad xor ah oo buuxisa himilada dadka ogaadeen oo wanalf isku raacsan tahay khilaaf kama taagin ku dhaqanka shariicada islaamka iyo in la dhiso dawlad waxaas haddaan qodobka u noqdo xoojinta diinta islaamka iyo dhisid bulsho siyaasad dhaqaale iyo bulsho ahaanba xor ah oo lagu dhaqo shariicada diinta islaamka oo ay hogaaminayso madax loo doortay si wada jira in loo dhiso shacbiga iyo dal yaani waa wax la isku raacsan shacbiga inuu leeyahay ila dhiso waa la isku raacsan haddaan u gudbo mabaadiida oo wanalf oo la isku khilaafsanay oo waxay oo wanalf u taaganta xaqa ay ka talinta dadyowga la gumaysto sida ku cad go'aamada iyo xeerarka qaramada midoobay xaqa ay ka talinta dadyowga la gumaysto sida ku cad go'aamada iyo xeerarka qaramada midoobay waa mabaadiida iyo hadafka oo wanalf weey khilaaf kama taagno isku raacsanta hagaag ilaalinta xuquuqda aadamiga iyo nabad ku wada noolaanshaha
dadyowga iyo dunida iyo dawladaha hababka kala duwan ku dhisan sida waafaqsan go'aamada iyo xeerarka qaramada midoobay oo aan ka hor imanaynin mabaadiida shacbiga Soomaalida ogaadeenaya oo isku raacsanta maxaan ku yiri qodobkaas kuugu celiyaa mise ma fahanti ma waa si fiican ma u fahmay way halka ayuu ka mid kale aan kuugu daro la dagaalanka gumaysiga midabta koorka iyo nooc kastoo cadaadisa oo na isku raacsanta way si fiican ma fahanti nooc kastoo cadaadisa la dagaalanka gumaysiga waxaan ku yiri la dagaalanka gumaysiga midabta koorka iyo nooc kastoo cadaadisa oo na ka midaysantaa way iskuma khilaafsana way waxyaabaha asaasiga u ah oo la finaabo nooc kastoo cadaadis waa mabaadiida oo naf marka nooc adigu inta doonta ka dhig koow ka bilow boqol gaarsi nooc kastoo cadaadis oo dulmi halka waa kii mudan Cabdikariin waxaad sheegtay mabaadiidii iyo himiladii ururka inaan la isku khilaafsanayso sida ma maxaa la isku khilaafsan yahay waxa soo dhan wax ka hooseeyo yar oo ka hooseeyo muxuu yahay noo sheeg waxa la isku khilaafsan yahay oo NLF madaxdeedii ku kala dhimatay muxuu yahay horta inaga Itoobiya la dagaalamayna muddo badan way Itoobiya dadkii wax ku bartay ma aynaan ahayn dadka sida loola shaqeeyay yaqaan ma aynaan ahayn way sida xataa language-keeda loo akhriyo ma naqaano way marka waxyaabaha aan inta badan Itoobiya horta marka horeysaba aan inagu garan weyna waxa kamid ah sidaan ula noolaan lahayn iyo sidaan u akhriyi lahayn iyada iyo sidaan ula tacaamul lahayn waan ku kala aragtidwanaano adiga maanta waxba lagu weydiin nin wuxuu leeyahay Itoobiya waxaan nahay Itoobiyaan baan nahay xeerarkeeda aan hoggaansanay qorshayaasheeda ku shaqaynayna nisaasu iska odhanaya misaal adigu saasadi ana waxaan leeyahay maya Itoobiya waa dawlad gumaysi oo ku dhisan cadaadis iyo gumaysi dal iyo dad aan leenahay sida darteed waa inaan kala go'aano banaanka isku abaabulo hadaan nabad ka helayna kaliya aynu inagu u jeesano xoogana gelino inaan inagu isdiyaarino inaan abaabulo oo isdhisno ما هذا تاس وادي جديد وحلات هذا بناك هذا المسكون بقوله ضد بقولكم كبدل صوتك على ربيع شوجة هذا إن نودق دقاقين إن وحو أبورين أو إن ورتكو أحرما فرسما يواضع شقين شقما الميد لها هاي ورت خلافكم يروح مركو وراء كبل لوضي إن حسوا بدنتهاي يد حاجة يمامولو دادي وأحرما مامول iyo arrimaha Itoobiya habkan ula shaqeyn lahay oo inaan aqoonin shuruucdeeda oo inaan aqoonin saan ula hadli lahayn oo inaan aqoonin saxaafadeeda saan ula hadlo oo erayga soon dhahnaba kii dhahaba aan isku qoonsanaynaba Itoobiya dimuqraadiya aan rabnaa baad adigu dhii maxal Yuusuf asoona wuxuu dhii beenaala tahay ma rabnaa inaan burburinaa rabnaa maxaa sababtay mid kale wuxuu leeyahay warada maxaa warta dhibka ugu badan wuxuu marigay dawaasaan iyada ula shaqeyn lahay mid kale jirta waxa weeye urur soo dagaalama hadduu ururku soo dagaalamayo qoriga ku xoroob ama la sameeyo intii xabad joojin la sameeyo heshiis la galo la yiraahdo aan dhisno dawlad wadaaga aan dhisano oo laba awoodoodu jirta ay wax wada dhistaan de waa dadbaadi kartaa laakiin adigoo 30 sano ka badan soo dagaalamahay oo baahan oo caayra marka aad meesha ku soo dhacdo dadkiina daryeel u baahan yahay tabaala badan ay meeshii taalo dawal lagu dhaxgali baahidaadana meelo badan bay ku gelin qaar dadkaaga meelo kale u shaqo tagayaan malihi oo ana laf madaxdeeda kala shaqo gashay absolute ma dhahayata ma dhahayo waxyaabahan isku eedayna waxa kamida in qaar federaalka u shaqo galeen qaarna kililka u shaqo galeen waxyaabahan dadka waxa qaba anigu mihi Itoobiya federaalkeeda iyo kililka inagu leenahay labadaba inaan la shaqeyno waa barnaamijkeenaba laakiin duruufta adag ee ina haysata runtii saameyn bay nagu yeelanaysaa waxyaabahaas ka aaminsan aad baa mahadsantahay way adiga Cabdikariin shakhsiyan markaan ku soo noqdo 14 bilood ugu dambeysay hadda aad ka joogtay wadanka Soomaaliya waa aamusneed
waana inta khilaafka hadda ururku aad u soo shacbaxayay eedaha ugu badanna ay soo baxayeen maaragtay waliba xubno golaha dhexe oo ururka kamid ah ay sheegeen in gudoomiyihii ururka shirkii guday lagu doortay ama shirweynihii u dambeeyay lagu doortay ay xilkii ka qaadeen iyaga laftooda qaybo kamid la yiri xubinnimadii ururka laga qaaday waxa soo dhan intay dhacayeen adiga waa aamusan tahay ma khilaafka ku saameeyay oo labada qole ee maaragtay isaysata qaybaad kamid tahay ni horta anugu khilaafka de wuu saameeyay oo wana laf baanahay dadka Soomaaliyeed oo dhan buuna runtii xusuusiya dareen uu ku wada leeyahay khilaafkaasi laakiin ma jiro qayb oo wana laf kamid oo anagu la dagaalansanahay iyo qayb aan si gaar ah u taageero oo wana laf waxaan u arkaa khilaaf uu dhacay waana laga heshiin doonaa mustaqbalka dhow talaabooyin la qaaday way jiraan oo dhinacyadu ay qaadeen oo runtii mid walba leedahay oo midnaba u arag inay saxan tahay gudoomiyihii baa xilkii laga qaaday kuma qancin ilaa haddana kuma qanacsani raalina kamihi gudoomiyihii inuu yiraahdo 30 xubnood dad ka badan oo dadkii qadiyada anu soo halgamaya caanka ahaa yaan ururkii ka ruqseeyay ayadoo wax procedure sharciya loo marin sidaan anigu aaminsanahay waa khalad mana aaminsanin ay tahay mana aqoonsanin in laga saaray ururka waxaan aaminsanahay inay yihiin halgamayaal talaabooyin noocaas oo dhinacyadu qaadeen baa jiro oo aan midna aanan u aqoonsanayn sida ay u dhacday inay sax tahay aan u aqoonsanahay mid walba inay si khaldan u dhacdo sidaa darteed oo wana laf waa ururkaygii waa walaaladay labadayda gacmood yaan ku haystaa midna ma sii deynayo saaxiibaan laahay walaalaan laahay dhiigayaga naftadana isu hurnay waa isu huri doonaa waa isu keenaynaa xal baan gaaraynaa kuladana waan ka baxaynaa muddo dhow insha Allah taala waan ka gudbaynaa wax la shak ururkan dad intaas oo milyan ayaa iskale boqolaal kun oo agoon baa u joogta inta in lagu rajooyinaha u jooga waali dadkoodii oo dhan dhintay gablana oo gaboobay baa u jooga uga baahan inta nool inay daryeesho oo gacmaha qabato oo xigta u jooga kumayaal kun oo naafaha u joogta oo dumar iyo rag ba isugu jira boqolaalan kun inay gaaraan ay dhici karto isku darkooda shacab iyo ciidan iyo xubinna shacbiga Soomaaliyeed baa dhibaatadii la wada gaarsiiyay oo la soo laayay baad arkaysay meel aan lagu soo leyn ma jirto shacbiga Soomaaliyeed xuduudda laga talaaba la soo leynayay qadiyadan wax ku leeyahay qadiyadan u dhimanayay qadiyada intaas ka dhaxaysa ee ay wada ilaashanaysa u soo wada baabaaday waxa kaliya u hareeyna dhaxalka u hareeyna waxa weeye caalanka iyo magaca iyo jiritaanka ururka la wada ilaashanay sida darteed kooxo ama shakhsiyaad iskhilaafay ururkan ma burburin kara inta naalaho ilaashanaysa xal degdegana waa la gaaray insha Allah waa maasantahay laakiin Cabdikariin markaan xaqiiqada taabano laba shakhsi haday isqabtaan ma la oran karaa labada shakhsi oo way khaldan yihiin miyuusan qaladku hal meel un ka jirin marka la fiiriyo laba ruux oo isaysata ileen ma wada khaldanaan karaan labada ruux waxa laga yaabaa inuu mid khaldan yahay adigu nin odayaa tahay magac weyn ku dhaxlay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna shacbiga reer Ogaadeniya iyo jabhadda oo aan elfka magac weyn ku labaday intaad Kenya iska imanaysa iska aamusaysa miyaysan waajib lagu lahayn inaad dadkan isu jiido cidda khalad kale la tiraado waa khaldan tahay wadada ku soo aad waxaan ku xusuusinayaa horta waxaan ku sheegay hadda laba talaabo oo la qaaday baan ku sheegay oo aan midna ku qanacsanayn markaan ku qanacsanayn labadaba waxaan u arkaa inay tahay israaf iyo xadgudub taa horta waa mid sida darteed cid walba oo talaabada qaaday waxaan u aqoonsanahay in ay tahay khalad la galay gardaradana ay qayb ka leedahay taas waa mid markay wax bilaabanayaan waxa laga yaabaa qofka ijtihaad uu xaq u malaynahay inuu laakiin xaq darra inuu qaado waa laga yaabaa
anigu waxaan aaminsanahay ma hubo inuu yahay shayga sawaabka iyo xaq ah wayna dhici kartaa inuu yahay shay khayr iyo sawaab waana sababta aanu aaminayaba haddaan ogahay inuu waxaan aaminsanahay uusan khayr ku jirin ma u dhaqaaqeen maba aamineen shayga xaq ah aadina sidaas waxaan leeyahay markaan su'aashaadan labada dhinac miyay wada khaldanaan karaan kow tallaabooyin baan kuu sheegay tallaabooyinkaana uma arko inay saxnaayeen sidaa darteed ay khaladka qayb ka wada yihiin waan u arkaa say wax ku bilowdeen waan kuu sheegay waa arrimo farsamo iyo maamul iyo sida loo wada shaqayn lahaa mabaadi'da ururka la iskuma haysto khilaaf kama taagin himilooyinka ururka la iskuma haysto khilaaf kama taagin oo aan leeyahay sababta ay u diyaarsanayd iyo waxa u taagnay ee shacbigeedu dagaalka u galay ee loo taakuleynayay waa mowqifka waa lagu midaysan yahay shaki kuma jiro waa arrimo farsamo iyo arrimo maamul iyo hab dhaqankii meesha ka soo baxay iyo Itoobiya oo laftigeeda waa maamul ayagu laftoodu kala jeeda oo dhib badan oo aad iyo aad khilaafiye ay uga wada taagan yihiin marka iyagoo iswada khilaafsan marka dhinacaad martaba mushkiladii boogay baad si dhaxgalaysa على حال ميل قبنيسنا وانمت أنا ونوحي ولا ساميي ولا سلقبتي واي برك أقول لكن دور كاج ما قاعد نسمع دور كي جوا حرين وانو قاطي حضر أنا قاطي ديار بانو هاي حارضنا ميل في عام ما ليس sida dadku uga argagaxsan yahay ama la moodayana arrinku inuu ka dabacsan yahay baan anigu aaminsanahay loo soo imanayo gudoomiyihii Nairobi ku yimid waan saragnay waan ka wada hadalnay aniga gudoomiyaha waan isu tagnay Sulu Cabdi Axmed waan isu tagnay waan wada hadalnay muddo dheer kadib maxaa xal ka baxay marka gudoomiyuhu wuxuu yiri wixii la soo maray waa la soo maray dhibaato wixii in ku dhici kara waa inuu dhacaan xal in la gaar diyaar baan u hay idinkuna isu u diyaar garooba oo qayb ka noqdo xalka umadu gaadhay odayaasha ururka tiin dadkii caanka habaatiin xaruurtiina una iskala fadhiine u diyaar garooba shaqadii ururka aad qaban lahaydeen iyo xal u helida wixii khalad ah dhacay ma u diyaarsantiin marka idinku mar walba iyo meel walba u diyaarsanay kaligeena ma madaxda oo dhan waan sugna sida isagu uu leeyahay hal la sax wax oo diyaar baan u ahay uu leeyahay cid walba يا يقطع. خلاص كلام الله. أنت ها والله لا أنا والله. والله. مر والبي مر والبي دياري. إن حل جارو. يا دحتة مركين حل كاس اللي جارو هاي. إنه سوي ما دار يعني واحد. نقول شيء إنتان رجنا عن سنة بعد. أوكي رجين تلك بعد مركز دتك سومالي تقول لا بقول شيء نيسا. بقول كيف كون. إن اللي سوي ما نقول. شعب كسوماليات. مدة وكذب. حفلة وين. oo ururka midnimadiisa iyo shaqooyinku qaban doonaba aan ku soo bandhigi doon hadii la yiraahdo waa warcad weeye su'aashan ugu dambaysa anu iska malihi shacabka Soomaaliyeed baa iskale oo ku weydiinay iyagana wakiil uga hayna ku soo gaarsiiyay sababtan sida uu leeyahay su'aashan waxaan ka soo qaadanayaa baraha bulshada dadka Soomaaliyeed waliba kuwa halganka taageera ay isku weydiinayaan waxaa toddobaadkan horaantiisii la xusayay sanad guuradii oo NLF ee 37 Nairobi xaflad weyn baa ka dhacday adiguna Nairobi baa joogtay kama aadan qayb galin oo laguma dhaxarag sababtu maxay ahayd horta Nairobi waan joogay maalintaana xubnaha ururku xogaal bay ka hayeen dhakhtar baan jiray maalintaas iyada ah qof xanuunsan baan maxaan u qaaday dhakhtar maalinta iyo maalmo ka dambeysay welina ma dhamaan nimba hawshii dhakhtar marka xubnaha oo wana laf way ogaayeen maalintaas inaan dhakhtar jiro oo qof xanuunsan aan dhakhtar kula jiro isbitaal aan kula jiro waa la ogaa marka maalintaas maalmo badan oo kale oo ka qayb gelin way jirtaa laakiin maalintaas cudurdaarkaas aan lahaa sababta aan uga qayb geli waayay taas ahay sabab kale aad uga joogtay ma jiro horta taas aba taagneed ayadoo tan aniga ay ii socoto baa xafladan u timid marka sabab kale de ma aqaan haday iman lahayd waqtigeeda laakiin maalinka sababtan ku maqnaa intaas ahay
aad iyo aad baad mahadsantahay ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabayn lahayd oo aad kula dardaarmi lahayd shacabka Soomaaliyeed iyo xubnaha ururka ONLF aad ka tirsantahay horta shacabka Soomaaliyeed in badan waan la hadalay maantana waxa inoogu muhiimsan aan u baahanay inaan ku dardaaran dhamaanteen isku ogaano waxa weeye inaan midowno marxalad culus baa waliba hadda inagu soo waajahan dagaal la inagu soo qaaday dadkeeni waa la barakiciyay dulmi badan baa la inagu sameeyay birina wax kala iman kara oo waxan ba inuu ka culus yahay ay dhici karto xurgufta dhexdooda intay meel iska dhigaan shacabka Soomaaliyeed in ay gacmaha isqabsadaan oo iscafiyaan oo u midoobaan dadkooda iyo dalkooda iyo say isu difaaci lahaayeen khatar haday timaado waxa wada qabsan lahaayeen dadku waa rixim iyo walaalo iyo qaraabo weey waa kuwii sharciyada islaamka ilaahay uu amray iyo rasuulkiisu inay isxiriiriyaan marnaba wax banaan maaha inay kala tagaan marnaba wax u banaan maaha waa inaan is aamino iscafino gacmaha isqabsano una diyaar garowno marxaladaha iman kara Itoobiya oo biljeedna wax ka socda waxa bari ka dhalan doona war ma hayno waa rajaynayna ilaahayna waa ka baryaynaa inaan khatar badan inayna inagu imanin inaguna cidna uma soconno cidna ma weerarayno laakiin midnimadeenu waxay furo u tahay guusheena rasmiga ah ee aan gaari doono ama aan ku noolaan doono ama aan sharaf ku yeelan doono iyay midnimadeenu waxay u tahay fure waa inaan midowno urur iyo siyaasad iyo xisbi iyo dawlad waxaanu halkan aan dhigno maanta marxaladdu way dhaaftay in kooxo iyo gruubiyo iyo xisbiye iyo xukuumadda iyo lisiraad maanta way dhaaftay qoliyaha mas'uuliyaadka waxaan leenahay fursadan maanta ay haystaan waa fursad dahabi wadankeena ma soo marin fursad uu leeyahay maamul inta leeg oo le adeegyadii iyo fulintii dawladeed oo dhan haysta oo shacbiga Soomaaliyeed aan wax siyaasad dagaal oo socdaana ay jirin maanta waxay haystaan fursad dadka Soomaaliyeed oo dhan lagu midayn karo loo jahayn karo wixii masaalixdiisa haddaan maanta ku tashano oo xukuumadda iyo xisbiyadu ay qorshaystaan aan wax soo saarno oo dalkeena ka soo saarno dadkeena baahida aan ka saarno hadday maanta ay qorshaystaan 6 bilood gudaheed dadkeena iyo dalkeena waxay noqonayaan dunida waxaan ka galeynaa meel dhaxan ka galeynaa yaani barwaaqo soorankeena iyo madax la galeynaa waxaanu ka takhalusaynaa gaajada waxaanu ka takhalusaynaa barakaca waxaanu ka takhalusaynaa aqoon la'aanta waxaanu wax walba qabsan karnaa wax hadii aan dhahno maanta sanadkan aan wax soo saarno oo dadkeena loo jeeyo boqolkiiba 3 qof xataa hadaan shaqo gelin midnimada dalka iyo dadka maanta xil badan baa inaga saaran shacbiga iyo odayaasha inahaas waan dhiilaa dadka madaxdaana waxaan dhiilaa doorkiina qaata fursadan uga faa'iideeyay bulshadiina khatarta iman doontana ha loo wada diyaar garoobo madaxda xoogaa maartay waayaan xurguf yar iska yar jirtaa lagu kala tagi maayo xurguftaas waxa la dagaal sokeeyo marna waa qababax marka dambana waa qoomame taariikhun baa qori in maalmo khilaaf uu jiray gacmaha la isqabsado maamulka deegaanku ma aaminsan tahay kala fogaanshaha oo aan leefin qayb ka yahay oo aan horta inta badan shirarka markaan isugu imanay jigjiga oo kale shir kasta oo sunnimaad ajendayaashiisa waxa kamid ah habka wada shaqaynta inaga iyo maamulka shir walba war murtiyeedka soo saarnay ku jirta sababtu maxay waxay ahayd inaga dagaal baan ku soo jirnay maamulkan hadda jirana waa maamul aan inagu qayb ka ahayn dhismihiisa iyo abuuritaankiisa iyo hay'adihiisa shaqada aan inagu ku jirin inaguna dad 30 sano soo dagaalamay qadiyadan oo soo dagaalamayay baana dad shacab ah oo la iska adeegsan kara manihin dad wax badan dhibsan karana waana waxyaabo aan isku qabanay waxaan isku diidno badan way jireen marka si aynaan isugu dhicin in aynu wada shaqayn fiican la lahaano maamulka qorshaasheena shirarka ka soo bixi jirtay sidoo kale dawladda federaalka Itoobiya inaan si fiican ula tacaamulo oo iyadana wada shaqayn wixii inaga khuseeyo inaga la dhaxay aan kala lahaan inaga qorshaheena ururkeena ahay
shir kastoo guddi fulin ba ka soo baxda shirka golaha dhexe ka soo baxda marka taas waxaan is leeyahay marka waxa kaliya u baahan wixii khilaafaad ah soo dhaxmara in la xalliyo ayna dood iyo su'aal ayna geli karin ma lala shaqeeyaa mise lala shaqeey maxaa yeelay go'aankeena ah lala shaqeey wixii ka dambeeya waa in uu noqdo hal xalliyo wixii khilaafaad ah waa intaa laakiin marar kala duwan waxa la arkaa madaxweynaha oo iyagoo soo qayb oo NLF la jooga isla oo NLF lafteedii karbaashaya miyay taas ma lagu la shaqeeyaa oo NLF yada laba meelood way kala qaybsantay ayada laftigeeda taas waynu ognahay laakiin midaas oo dhalin jirta ma runtii fiiri ninkan xisbi buu wataa doorasho rabaa inuu galo in allaala intuu ku reebi karo dhulku ku gelin karo uu ku gelin laakiin kuwa la jooga hoos ku seexin ma hayo laakiin kuwa marka ag fadhiya miyaysan ahayn inay yiraahdaan war sidan ma qabato oo fiirso markaad adiga aad qof iskhilaaftaan qofka in lagu laxanto waad iska doonayso ma fiiri qof labada qof ee isqabata markuu kii kale ka maqan yahay waa la isla xamanaya horta sideedaba anu kuma faraxsani marnaba raali kamii madaxweynaha kililku inuu ONLF wax ka sheegay halgamayaashii dhiigoodii iyo ehelkoodii iyo naftooda u huray qadiyadaan inuu wax ka sheego marnaba kuma farxay marnaba raali kama noqon karaan فهميسا من آمسين قف أو أنا لفي إنه رال كان أما قف صومالي إنه رال كان قكره قد يدع أمد أصعب بعض ولي أتاجن إن وحلاق الشيء إن لحجر دامي إن دبلوجيستو قف كسر صومالي رال كمان قكره لما ويدي بس أمد صومالية والله مدحوينها أنا مرة كأخر وحاس لها inta doorashada ay ka dhamaanayso waxa ka go'an inuu madaxa intuu idinkaga istaag waana xisbiyadu markay tartamayaan dib waa kaaga iman kara marka cadaadiskaas oo aan isleeyahay wuxuu isleeyahay yeerin awood kugu ciriirin yeeran ayagu masrac maartay ka saarin waxyaabaha saas oo kale oo aan dareemaya laakiin waa inuu iska dhaafahday waa ceeb weey waxaan maartay dhaqan inay noqoto ma isaga laftiisu markuu ka hadlayo mararka qaarkood si fiican buu uga hadlaa mararka qaarkood uu ku taxlaa tagaa uu yiraahdo inaan ONLF inaan naga qorshahay haduu baabiyo muxuu ugu bedelayaa ONLF waxa uu ku bedelayo ee Soomaaliyu leedahay ee meeshii yaal muxuu yahay ee uu keenayo BB yaal ma naga arma Soomaali baa am xaraale waa hadafkii Abasiiniya ee hay midnimada Itoobiya waa muqaddis dhulka la wada yeelanayo Itoobiyada la wada leeyahay waa deegaanka Soomaalida qofka Soomaaliga looma ogola intuu Gondar iyo Baxardaar tago inuu beer ka sameeyo warshada ka sameeyo dukaamo ka sameeyo maalgashada looma ogola hormiyo looma ogola afar looma ogola harad ma yaani meel la looma ogola dhulka la wada leeyahay la wada qabsanayo ee la degi doono ee ummadu ku soo guurayso waa dhulka Soomaalidu ay leedahay kaliyeed way waxa kaliya magac Soomaaliyeed ee milki Soomaaliyeed u taagan oo wala lafway markii la leeyahay meesha laga saaraya maxaa loogu bedelayaa la hayaa hal la keeno waxay Soomaalidu leedahay oo garanayno oo mas'uuliyadda Soomaaliga qaadan kara oo laajida Soomaaliga kuma yaani fikir Soomaaliya wata oo leeyahay kan ku bedelayna hal la keeno saamiyaan lahaynin kanay Soomaalidu leedahay laga daayay dhibaatada kanay leedahay qofka aad nacabtay berri buu tagi haddaan hebel nacabahay hebelkanu shalay uu xukun ka qabtay 3 sano 2 sano kadibna wuu tagi laakiin adduunyadu sidii bay u taagnaan shacbigu sidii buu u taagnaan dhulku sidii buu u taagnaan ahmiyadii iyo milkiyadii iyo dhulka iyo mas'uuliyadii sidii bay u taagan marka waxaan aaminsanahay hadii ONLF wax lagu bedelo oo ummad Soomaaliyeed leedahay oo Soomaali iyo culture-keeda iyo dhulkeeda iyo waafaqsan hadii la helana hal la keeno hadii kalena wartana Soomaali ha wada dhoobato Mustafana qayb ka yahay dadku madaxweynaha ka yahay ururka laftiisu dadka uu madaxweynaha ka yahay ONLF iyo shacbigeeda cid walba way mas'uuliyad badan baa ka saar waa inuu marka ilaaliyo ummadda xaqeeda waa inuu ilaaliyo hantideeda waa inuu ilaaliyo ONLF waa hanti ummadeed waa inuu ilaaliyo hantida ummaddu ay leedahay dhaqankeeda waa inuu ilaaliyo wax kale haduu keenayna haynoo keeno waxaan mariin hadda ay keeneen waayahay aad baad maasan tahay mudan Cabdikariin Sheekh Muuse ayuu kaasi intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waraysigan guud ahaantiiba inta aan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo